الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxay nagu soo dhow Ramadaan. cidii Ilaahay uu gaarsiiyay waqti yar oo kooban baa ka dhiman, ugu badnaan 3 maalmood. waxay noo soo urayeen nasiimkeedii iyo carafkeedii iyo udgoonkeedii baynu dareemaynaa qofkii alla waafajiyo. Ramadaan waa fursad aad u qaaliya oo qofka cibaadada u heelani uu jeclaysanayo inuu ka naxayn. waxaa u baahan inaynu dib eegno sanadii hore iyo ramadaanadii hore. inta dadii nala joogay ee ehel leh, asxaab leh, macaariif leh, haddaad dib u tiriso waad yaabi. alaabta baad iska soo xidhxidhanoo aduguna ama inaguna kuyugaa baynu isu sii diyaarin doonaa, weliba ayaamahan dambe sida loo soconayay. waa cashar iyo cibro, wax lagu cibro qaatana geerida u mudan. qofka isag joogteen ama isku ag tukanayseen ama isku shir fadhideen ama isku xaafad ahaydeen, markuu libdhuu qarsoomaanu soo noqonayn, adigu maxaad sugaysaa? meeshii haddaba mudnaydee laga sahay qaadanaya waa Ramadaan. waxaa la sahay qaadanayaana waa camal ee daaraha iyo dunyada maaha. marka fursaddaa qiimaha badan ee qaaliga ah, fadligeediiyo waxa laga faa'iidayo baynu ku soo koobsan doonaa insha allahu 8 arrimood oo inagu filaan doona. arrinta u horeysaa waxa weeye bishani waxay leedahay khusuusiyaad, waxyaabo dheeraada. bisha dhexdeeda insha allahu haddaynu gaadho waynu ka sii warrami, laakiin ilaa 7 arrimood ayaa xadiidkani uu sheegaya. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xusay xadiidkan oo saxiixa dadka isagoo u bushaaraynaya, bishana tarxiibinaya oo soo dhoweynaya. wuxuu odhan jiray qad jaa'akum shahru ramadaan, waxaa idin yimi bishii ramadaan, shahrun mubaarak, waa bil barakaysan. markaa ramadaan kariim iyo ramadaan mabruuk midna inaan la odhanayn baa xadiidka laga faa'iidaysanayaa, la odhanayaa ramadaanun mubaarak. nebigaa magacaa u bixiyey. mabruuk iyo mubaarak way kala duwayn. mabruuk waa waxa fadhiyaa la idhaah, laakiin mubaarak waa shaygii barakaysnaa. mubaarak bikasri raana maaha. bikasri raa haddii la akhriyo la idhaha mubaarak waa qofkii wax barakaynayay. marka waa bil barakaysan. kataba allahu calaykum siyaama, waa waxyaabahay dheeraadka lati, waa inay barakaysan tahay, waa in soomkeedu uu waajib yahay, oo bilaha kale taa way kaga duwanta. bilaha kale soomkoodu waa sunni. fiihi tuftaxu abwaabu ljanna, albaabadii jannadaa la furayaa in ka badan intii hore. wa tuqlaqu fiihi abwaabu ljaxiim, naaraha albaabadoodiina waa la xidhayaa. wa tuqallu fiihi maradatu shayaaiin, shayaadiintii madaxa adkaa dhibka inagu haya cibaadada inoo diidanaa dagaalka adkaana waa la xidhayaa. lilaahi fiihi leylatun khayru min 1000 shahr, ilaahay wuxuu habeenkan ummadda u dhexdhigay bishan u dhexdhigay habeen ka fadli badan 1000 bilood. man xurima khayrahaa faqad xurim. nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, bishan qofka laga calaf seejiya, laga qadiyo, ee loo diido, ee loo qadarin khayrka ay leedahay faraha badan, kaasi waa calaf go-ay. marka arrimahaasoo dhan buu nebigu ku yaboohay calayhi salaatu wasalaam. marka intaasoo arrimood kol hadday bilihii kaga duwanta inaynu isha si gaara ugu haynaa oo inuu han weynaanaa wax weyn wey. qodobka labaad waa sababaha lagu dhaafo dembiyada. innagana waxay noogu darani waa dembigeenna, oo cid kaloon ilaahay ahayn oo inaga dhaafaysa aanay jirin. rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid waxa uu ku yiri saxiix muslim ku sugan: alsalawaatu alkhams waljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahun majtunibat alkabaa'ir. salaadaha 5 ah iyo 2 jumce iyo 2 ramadaan inta u dhexdhexaysa ilaahay wuu ku dhaafaa dembiga. macnaha ramadaantii hore wixii ka dambeeyey ilaahay tanuu inaga dhaafaya insha allahu tacaala. dembiyada waaweyn haddii laga durka buu nebigu yihi, dembiyada waaweyna waynu ka toobad keenaynaa.
arrinta saddexaad ee bishani fadli ay leedahay si aynu ugu dhiiranayn u jeclaysanno waxaa ka mid ah inuu soomkii noqonayo ilaahay hortiisa mid inooga ergeeya maalintaana aad baynu ugu baahannahay ilaahaynu hor taagannahay cid inooga ergeyso alla ergadeeda uu aqbalayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi xadiid saxiixa alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama soomka iyo qur-aanka labadaasiba addoonka way u shafaaco qaadayaan way u ergeynayaan ilaahay bay uga ergeynayaan maalinta qiyaamaha mid waliba gaarkiisu u doodayaayo soomkii wuxuu leeyahay ilaahayow waxaan u diiday qofkan cunadiisii iyo rabitaankiisa qur-aankiina wuxuu leeyahay hurdadii baan u diiday habeenkii oo dhan buu akhriyay oo uu igu soo jeeday rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam fayushafacaan waa laga erga aqbalaya camalkaa saalixa aynu ilaahay ugu tawasulayna inuu ugu dhowaanayna markuu inoo ergeeyo ilaahay baa ka aqbalaya ergada wax lagu ididiisho qaaliya wey cibaadadan iyada ah waxay leedahay dheeraad uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam addoomaha ku dadaala caanka ku ana casuumad gaaruu ilaahay u fidinayaa maalintuu awliyadiisa jannada geynayo nebigu waxa uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa jannada waxaa ku yaalla albaab la ydhaa rayaan waxaa ka gala keliya dadka soomka caanka ku ah markay galaanay ku dhammaadaanna waa loo xidhaa macnuu si gaaray u casuuman yihin maadaamuu camalkoodu ahaa mid khaasa oo sii khaasoo iyagii ilaahay una isla ogaayeen cibaadadan fadligeeda waxaa ka mid ah nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ama aan nidhaahna waa habaaray rasuulka iyo malakul jibriilba cidda bishan ka calafkooda ee ka faa'iidaysan weyda ee meel baa soo daran oo kale u kacda malagu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay oo uu ku yidhi 3 jeer buu aamiin dhe yidhi nebiga aamiin dhe aamiin dhe qofka ramadaan u soo gasheen soomin ama nebi maxamed maqleen ku saliin ama waalidkiisiiba aanu samafalin ee ilaahay uu naarta geeyo alla ha ku fogeeyo aamiin dhe nebiguna aamiin buu yidhi mid loo ergeeyaba maaha kaasi waa inkaar qabe xadiidkuna waa saxiix habaar malag iyo mid nebe meesha isu raaceenna hawl adag baa ka jirta qofkaasina waa qof halaagsamay alla inagama yeelo fadaa'ilka bishan waxaa ka mid a inuu yahay dariiqun cadiimun ila aljanna waa waddada loo maro jannada asxaabtu ridwaanullaahi calayhim allaha ka raali noqdee rasuulkeenna waxay weydiin jireen wixii u keenaya ilaahay raali noqoshiisa ay ku helayaan ama jannada ay ku helayaan hankoodaa weynaa halka laga yaabo innagu inaynu aada ugu hanweynay adduunyada iyo arrimaheedaa yaryar asxaabi abi umaama la odhan jiray radia allahu canhu wa ardaah ayaa rasuulku su-aal weydiiye wuxu uhi qultu yaa rasuula allahi dullanii calaa camalin adkhulu bihi aljanna anigu hal arrin baanu ku weydiinayaa camal aan ku galo jannada bal mid camal noocaason ku dhega unii dhiib rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu soo gaabiye wuxuu ihi calayka bisawmi fa innahu laa midla lah waxaad ku dadaashaa soomka wax la midiba ma jireen asxaabiga abi umaamo la yidhaahdo waxa uu ahaa laa yuraa fii beyti dukhaan nahaaran ilaa idaa nazala bihi dayf intaa wixii ka dambeeyey maalinkii gurigiisa dab laguma arki jirin macnaheedu waxa weye dab muu shidan jirin maalin oo dhan wuu soomanaan jirin marka marti u timaada mooyaane oo dee martidii waxay leedahay in la maamuuso oo wax loo kariyo oo la sooriyeeyo haddii aan martidaasi la joogin soomkiisuu wadan jiro habeen unbuu wax karsan jiray dee wuxuu ka ballan qaaday wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey ee uu isaguna u sheegay soomkii faralkaa iyo kii sunnaa labadaba waa noqonaya soomku waa kafaaratu lilmukhaalafaati walixinthi lyamiin dhaarta culus marka uu addoonku fulin kari waayo waxyaabaha lagu furdaaminayuu ka mid yahay soomku ee ilaahay ku dhaafayo qofka dhaarta suuratulmaayida ilaahay wuxuu ku xusay inuu bixiyo raashin iyo dhar la xidho intaaba hadduu waayo ilaahay wuxuu uhi faman lam yajid fasiyaamu 3 ayaam dalika kafaaratu aymaanikum waxfaduu aymaanakum idaa xalaftum waxyaabaha hore haddii weydaan
waxaa ku dadaashaan kafaara gudka dhaartu inuu noqdo 3 maalmood oo qofku uu soomo dhaartiina waxa idinka salabaynaya oo idinka safaynaya oo ilaahay idinkaga dhaafaya soomkaas baa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadliga cibaadadan waxaa ka mid ah qofka ku dadaala annahu yakuunu min as-siddiqiina wash-shuhadaa waxa uu ka mid noqonayaa dadka ugu fadli badan addoomaha ilaahay kuwa runta badan iyo kuwa naftooda quudhay ee dagaalka gaalada ku shahiiday liiskaasunbuu ku jiraayo kuwaasunbuu la mid yahay bushaaro uu nebigu na siiyey waya calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xadiidkuna waa saxiix camru bnu murra aljuhani allaha ka raali noqda ayaa wuxuu nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ninkaasi su-aal buu nebiga inoo weydiiyo waxa uu leeyahay ara'ayta in shahidtu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulu llah waxaad iga warantaa rasuul allah haddaan ilaahay qiro oo adiga aan qiro rabbi iyo rasuul haddaan qiro wa sallaytu salawaati alkhams 5 salaadoodna aan tukado wa addaytu zakaa wa sumtu ramadaan wa qumtu mimman ana haddaan ku dadaalo arkaanu islaamkii towxiidkii salaadii sakadii soomkii iyo sarajooggii habeenkii ilaahay loo cibaadaysanay inta haddaan ku dadaalo bal anugu qoladeen ku jiraa dad badan baa fadli diintu ay u sheegtay dadka aan liiskooda ku darmaya aan ku yidi dilanaya waa kuwe rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri min as-siddiqiina wash-shuhadaa waxaad ka mid tahay dadka ilaahay quraanka ku sheegay cid la tamaniyo oo la jeclaado oo lagu yidiisho iyagu u fiican kuwa runta badan iyo kuwa shahaadada liiskooda ayaa raacaysa ilaahay wuxuu waman yudici illaaha war-rasuul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلا للرفيقنا كوا سأونا يكسن بلاي قفك إلهي الضيعي كتلقى تنفت أن كتلقى ضدك سور راعيا جنة أولا قليا إنها سوحا يكمدين فضائل كبشا إنه سو آدن إنه سو فوله أينو إلهي كفلا إنه كسوغينا إنه قارسيو سنبضا إنه قارسيو يعافي ما القب marka waxa kale ay nala gudbani waxa weeyaan inaynu guntiga geejasano oo bishan si wanaagsan aynu waajahno soomkeeda iyo qiyaamkeeda iyo cibaadada qaybaha kala duwan in lagu akhriyo oo lagu dadaalo oo ehelka iyo ummadana lagu abaabulo sidii khayrka ay uga faa'iideysan lahaayeen waa fursad qiimo badan oo nafta lagu edbinayo caafimaadka ruuxda iyo jidhkuna uu ku jiro si ay u tamariso sanadka inta hadhay sahay wanaagsan adoonku helo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية يا الله اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.